hooyo ayaa u fadhiisatay si ay carruurteeda ugu celceliso casharadii ay subaxii ka soo qaateen iskuulka. Waxa ay siisay canugeeda ugu yar ee cimrigiisu gaarayo 4 sano buug ay ku yaallaan sawiraan, si uusan ugu mashquulin casharada ay ugu celcelinayso walaalihiisa kale. Si kedis ah waxa ay soo xasuusatay inaysan casho u diyaarin ninka qaba aabihiis oo la deganaa, kaas oo ah waayeel. Waxa uuna guriga ka deganaa qolka koonaha guriga ku yaalla, mana ahayn mid ka baxa qolkiisa tamartari awgeed. Hooyadan waxa ay u degdegtay inay casho u diyaariso sodogeeda, waxa ayna weydiisay inuu u baahan yahay wax kaloo adeeg ah. Waa ayna ka soo tagtay. Markii hooyadii ku soo laabatay carruurteeda, waxa ay aragtay wiilka u yar carruurteeda oo sawiraya sawir 4 gees ah. Hooyadii ayaa weydiisay, "Maxaad sawiraysaa wiilkaygow?" Waxa uu ugu jawaabay si baqdin aynan ku jirin, "Waxaan sawirayaa guriga aan ku noolaan lahaa markii aan weynaado oo aan guursado." Hooyadani waxa ay ku faraxday jawaabta canugeeda yar. Waxa ayna weydiisay, "Xagee ayaan seexanayaa?" Wiilkii ayaa bilaabay inuu uga sheekeeyo qol kasta. "Kan waa qolka jiifka, kanna waa jikada, qolkan kalena waa qolkii martida." Waxa uu sheegay dhammaan qolalkii ku yaallay guriga. Waxa ayna aragtay qol ka baxsan guriga. Waa ayna weydiisay, "Waa maxay qolkan guriga ka baxsan?" Waxa uu ugu jawaabay, "Qolkan waa qolkaaga. Waad ku noolaan doontaa sida awoowe oo kale." Hadalka canugan ayaa hooyadani waxay ugu xanuunsatay sidii fallaarti oo kale. Waxa ayna guda gashay inay nafteeda weydiiso, "Ma waxaan noqon doonaa mid cidlo dareenta oo degi doonta qol ka baxsan guriga?" من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Aniga oo aan waqti la qaadan doonin wiilkayga iyo carruurtiisa, ma noqon doono miyaa mid ku raaxaysata markii ay ka caajisto fadhiga, dheeldheesha iyo farxadda ilmihiisa? Ma waxaan noqon doonaa mid kali ku noqota 4 derbi dhexdooda, aniga oo aanan maqli doonin codka qoyskayga? Hooyadii waxay u wacday shaqaale. Waxa ay bilowday inay alaabta ka qaado qolkii martida, kaasoo caadiyan ahaa qolka ugu quruxda badan qolalka. Waxa ayna soo dhigtay sariirtii ninka qaba aabihiis, waxayna geysay alaabtii taallay qolka martida, qolkii ka baxsanaa guriga. Markii ninkeedii uu ka soo laabtay shaqada, waxa uu la yaabay waxa uu arkay. Waxa uuna weydiiyay, "Yaa sameeyay isbeddelkan?" Waxay u jawaabtay iyadoo ilmada ka daadanaysa indhaheeda, "Waxaan doortay qolkii aan ku noolaan lahayn markii aan duqowno, haddii Alle na siiyo cimri dheer." Ninkeedana waxa uu isla markiiba fahmay ulajeedka hadalkeeda. Ninka aabihiis waxa uu fiirinayay wiilkiisa iyo xaaska uu qabo, asagoo raalli ka ah. Wiilkii yaraana waxa uu masaxay qolkii uu ku sawiray guriga banaankiisa, asagoo faraxsan. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.